السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي ونكسن أصحاب شرفت لي كحرن قحن قبض إنوفيشن تيك توك iyo يوتيوب كنا سعودان مقالكان waxaan ku faahfaahin doonaa sidee ayaad $40 ugu bedeli karnaa 600 iyo ka badanba haddii aad tahay haddii aad tahay qof forex-ka ama journalist-ka ama candlestick-ka ama sida loo analyze gareeyo trading view-ga aad ku fiican tahay muuqaalka wuu ku anfacaa. haddii aad intaas ku fiicneen ma geli kartid sababtoo qaybtan waa qayb trade-ka high risk high reward waay. marka waxaan ku tusinaa qish fiican ama qaab fiican oo aad khasaaraha isaga ilaalin karto oo faa'iido badan heli karto. meeshan khasaaro way jirtaa laakiin khasaaraha waa yareyn kartaa. marka waxaan ku trade gareynaynaa Binance. triga iyo tabka aan isticmaali doono marka fiirso. tusaale aniga hadda trading view ayaa isticmaalayaa. hadda waxaan analyze gareeyay aniga Bitcoin. analyze gareeyay daraadna waxaan soo dhigay YouTube-kayga ayaa soo dhigay. marka Bitcoin waxaan ku analyze gareeyay in ay u socoto sell. keygii koowaad oo daraad aan soo analyze gareeyay kan oo ahaa TB-gii ma gaarin dhaxo ka soo laabtay. haddana interigeyga ku soo laabtay. isla sidoo kale haddana waxaa soo gashtay demand waxaa kale suuq kale soo gashtay oo ii socdaa. marka waxaan rabaa marka in meeshaas oo demand zone-ka ah ama qaybtaas hadda ii saaran inuu xagga tago oo ah 9,699 inuu tagi doono waa xawaayl lama cali isma weydiinayso. okay adiga marka haddii aad analyze-kan si fiican u taqaanid waxa waaye videogan wuu ku anfacaa. okay hadda waxaan ku jirnaa marka waxa waaye habraar ama haybar sida loo yaqaanaba. haybar waxaan analyze gareynay xalay inay xaggaas tagto oo kadib dhamankeena oo 0.27 ah. adii dhan waxa u baahan tahay 5% bis inuu suuqan dhaqaaqo 5% faa'iido haysataa. okay waxaan dhigaysaa marka Binance-gana features ayaa ku dhufanaysaa. marka qaybtan ku qoran tahay feature ayaa ku dhufanaysaa. feature ayaad galaysaa meesha ku qoran tahay USD ayaa dooranaysaa coin. marka waa soo analyze gareysanay. tusaale hadda waxaan soo analyze gareysanay Hyper inay intrigeeda yahay nagay. Hyper intrigeeda wuxuu ahaa 30.97 Soomaa halkaas 30.97 nagay. marka waxaa leedahay marka laba nuuc waa marka xaggaas ku dhufanaysaa. waxaa leedahay marka average-ka meeqa u baahan tahay. haddii aad suuqa hubto inuu kala wareegay oo kandhala confirmation kugu soo bixiyay Engulfi, Hammer, Doji, Morning Star kuwaas da kugu soo bixiyay oo reversal suuqaas uu yahay aad hubtid 100% hubtid oo suuqana warar badan ka soo baxeen barada one day waxaa la faa'iido lahaa waa qabanee waxaa geenaysaa 40x ama 30x geysanaysaa. 30x waxaa marka hadduu 5% dhaqaaqa bis $300 haysataa. marka si aad management u samayso adiga oo aad khasaaro u helin oo aad suuqa ugu jirto mar walba ha kormarin 15% ilaa 10% ha kormarin. marka confirm ayaa leedahay xaggaas marka percentage x ka saaratay iimaanka ay ku xiran tahay meesha marka. okay meesha marka waxaa waa inta lacag ee lagu ogol yahay inaad trade ku sii samayso waay oo flotation oo banaanka taalo. xaggaas ayaa ku dhufanaysaa lacagta marka oo USDT-ga spot-ka kugu taalo aad waxaa keenaysaa feature. adiga marka lacagtaada oo spot kugu taalo haddii aad khasaare gasho lacag spot ka taal lagama garaafeynayo oo inta aad u ogashahay in laga khasaariyo bis ah halkaas soo gashanay. hadda marka tusaale waxaan leenahay waxaan khasaaro u ogolnahay aad leedahay $45 aan suuq u galaa aad leedahay $45 waxaa leedahay marka confirm transfer. lacagta waxay soo galay marka intay soo galay xaggaas ayay soo galaysaa. meeshay ku qoran tahay USDT ayay soo galaysaa meeshaas. waayahay marka qaybta marka waxaa soo har marka orderada limit waxaa waaye haddii suuqa oo tusaale oo kor u socdo suuqa haddii oo kor u socdo oo inuu soo laabta rajeynaysid waxaa leedahay suuqa markuu kor imaado oo calaamadda hadda habraar oo kale Hyper oo kale sale u socotaa. marka baayaarta inuu soo raacdi marka
waxaa leedahay suuqa bareyska markuu yimaado 0.2774 markuu yimaado isoo raaci xaggaasna TB idhig oo aan galo markaas waxaa isticmaalaa limida isticmaalaya marka okay marketna waxaa la isticmaalaa hadda igli waa suuqa bareyska u maraa tusaale wuxuu maraa 0.1895 uu maraa hadda igli aad leedahay sababta waa aragtay suuqa inuu dhanaan yahay oo la raaci kara aragtay markedaa lahaa intaan fahansanaya kuu sheegaa kana post only waxaa waaye waxaad u isticmaali kartaa orderska inaad ku dartid inaad booking gareysatid ama inaad maxaa la jira bare existing order ama mid hore u jiray inaad dib ka sii gashay aa lahaa post only stop limit waxaa marka suuq soo socdo ama suuq kor u socdo adiga kor aa horta inaad sii raacdaa rabtaa confirmation aa samaysatay confirmationkaas markuu yimaado iraaci aa lahaa marka stop limit sidoo intaan oo kale marka qaybta kale muhiim ma aha saddexdaana muhiim ah anaga marka inta badan waxaa galnaa market iyo limit aan galnaa waayahay tusaale marka hadda waxaan galay limit ayaan ku galaynaa waxaan leenahay habraar markii ay tagto 0.27 soo raaci meesha marka waxaa rabtaa amount meeqa percent yaa ku galay marka lacagta ay tusaale $100 haysta mo waxaan galaan leenahay 25% 25% maxay u dhigantaa $25 aan suuqa la geliyay ama hadday $40 soo qaadatay $40 soo qaadatay waxaa la $4 meeqa ka noqonaysaa waa $10 intaas uma jeedid $22 suuqa gashay okay TB yaa dooranay marka meesha TB ay ku qoran tahay take profit ayaa dooranaysaa waxaa gelinaya marka take profit meeqa ku noqonaysaa waxay ii noqonaysaa leedahay 0. price-ka fiirinay marka 0.27775 ay noqonay 78 aan dhahay stop loss-kaaga maxaa waaye waa 0.32 iska dheh marka maxaa u raacunaa sala u raacinaa marka sal ayaa leedahay orderka marka inta kala marka open orders hadhow markuu suuq soo gala marka position ayaa ka dhaxar kartaa marka wixii suuqa ku furan waay haddii marka faa'iidada aad ku qanacdo had tusaale kan oo kale 68% waa kan 46% waa haddii faa'iidada aad ku qanaco waxaa leeyahay marka stop aad dooranaa marka ejar ama maxaa la dhihi jiray ejar aan dooranaa haddii marka inaan fiiriyo rabo lacagta faa'iidada rabna inaan fiiriyo rabo waxaa leedahay TB aad dooranaa position sii dooranaa halkana marka anada TB waxa yaala 27.78 u yaala haddii suuq meesha uu gaaro waxaan faa'iida $113 stop loss-na yaala kan hadda stop loss aan dhiga rabaa waxaan leeyahay suuq kala wareego halkaas intaas khasaaro oga lahay intaas waa marka adi marka waxaad saadaalin kartaa marka suuq meesha uu aadahay faa'iidadii khasaarana halkaas lagu kala ogaadaa waana waxaa loo yaqaanaa feature waa lacagta marka hadhow waxay ku galaysaa qaybta feature-ka galaya sidee marka feature ugu bixinay marka waa lacagta marka waxaad tagaysaa qaybtaas aad tagaysaa oo funding ay ku qoran tahay transfer ayaa dooranay marka lacagta oo fundingka spot keenay ama coin feature ku dhufanaysaa featureska ka soo qaaday USDT aad dooranay aad soo qaadaysaa feature funding aad keenaysaa soo ma jeedid lacagta aad soo bixin kara waa $98 marka waxaan rajeynayaa inaad aad fahantay qayb trade-ka sida loo galo oo aad ka faa'iideysan doonto insha Allah